صاحبيالو شلي قرأ دهور كوكس من تهم مقال إيصادري فيسبوك اللي يصادري فيسبوك هدام فري وفيديو عن شحماها وأنا هذا أنتي تقولوا ذا كده مقال كهدام فري مركان أركين كبعد يوم قفك وحميدي صوت هذه يصادرت محطها يقول له وحاربة أذيك ميا قفك وحاراني معهن لكن أنا هديس أن هنا حتى صوتها وفي ناس محيطها ما يوحولها أذيك نكون ملينا ويعني somehow سوي يوقف كانوا يلك أيك هذا وحنا ما حدثنت هاي سيدي قلت لكم حنا مقالك إيجترا أنا معها from that time إلا حالي إلا ساكا أو هدا عن سوق أو حيركور مع دائما أنت جمعة هيد وحال يلو ذا جاي مقالك ملول بلا يقصو دري secondly وح صوري جدت فرا بدن وح يكومنت كريه جدت فرا بدن أو تيك توك إلى هوس آذين waxay caynooyo dad fara badan qofka bini'aadamkana inuu wax xubsado waa wax wanaagsan haddana haddaad qof muslim tahay kuma sii jirto inaad qof kale oo cirdigiisa si sahlan ugu xadgudubtid wax sahlan maaha raali hada hurdan ka soo kacay codkayga xabibsan yahay saaxiibayaal soo dhawaada muuqaalka aad igu nabisan aad maxaa la dhahay comment gareynaysan aad soo aragteen aniga ma ahan qof islaam ah wallahi aniga ma ahan billahi aniga ma ahan wallahi aniga ma ahan gabadhaas Soomaalida dhan way iswada shabahda muuqaal ahaan dad fara badan oo isku eeg ayaa joogaan oo buuxan qofkaas waa laga yaabaa inuu ishabaho laakiin aniga qofkaasi ma ahan okay soo dhawaada muuqaalkaas aad soo daawateen gabadhaas waxa la dhahaa gacalo waxay caan ka tahay TikTok iyo Facebook iyo baraha bulshada gabadhaas waxay ka dacwoonaysaa muuqaal la soo qarxiyay gabar ayada u eg ayada toos loogu soo diray horta waa wax cusub qof wala soo qarxiyay wala arki jiray laakiin qofkii la soo qarxiyay oo muuqaalkii isaga toos loogu dirayo waa sheeko cusub oo reer qarxis ay noo keeneen gabadhan muuqaalkii waxay sheegtay in aysan ayada ahayn laakiin Soomaalidii ayaa wali ku dhagan oo aan aaminin oo waa adiga leh oo korka kaga tolahayo life حتى way ka soo hadashay horta dadka in la naba ma fiicna waxyaabahan qarxiska ah horta dad amal la'aan ah ayaa sameeyo oo adduunka aakhira wax ay sameeyaan nin ayaa ka hadlo wax adduunka ka ah mamnuuc lanimo iyo in la faafiyo faafinteedaba wax mamnuuc ka ah waaye oo xabsi kiisas waaweyn oo qabsan karo qofkii waxa faafiyo kiiskaas adduunka waana international waa caalami qof dhilanimo ku dhaqaaqo ama wax ku saabsan soo qarxiyo ama dad fadeexeeyo waa xabsi abadan ah ama xabsi dheer penalization kale iyo qaabab kale oo xoogan ayaa loola dhaqmaa Soomaaliya anaga Soomaali hadaan nahay waxyaabahan waxay noogu badan yihiin waxa daliil u ah inaan dawlad haysanin oo dawlad la'aan aanu nahay wadankeeni uu iska rafaadsan yahay dadkeeni Soomaaliyeed ee dhibaato iyo abaaro iskaga sugan yihiin dawlad maanta waxaas awood u leh ama capacity-geeda leh in ay xadido wax ka qabato aan awood u lahayn annaga ayaa la rabay inaan aqliga isticmaalno oo aqli aan ku darno oo waxaan ka foojignaano oo arimahan ay joojino qarxiskan goormu istaagi doona waa su'aal ma kula tahay inuu istaagi doono Soomaaliya commenting noogu soo qora maxaan ka qaban karnaa oo arintan maxaan ka bedeli karnaa hadii aan Soomaali nahay arintan adduunka kale xataa dadkii Telegram-ka ninkii iska lahaaba yaabay oo wuxuu leeyahay Soomaalida muuqaalada iska soo qarxinayaan wax wada foolxuma ah oo nooc kala ah oo wax xataa indhaha eegi karaan ahayn CEO-ga ama ninka iska leh ii sheegay abkaas Telegram ayaa laftirkiisa yaaban oo Soomaalidii buu la yaaban yahay waxyaabaha iska soo qarxinayaan xataa wuxuu leeyahay wax qurux badan maba ahaba dadka wax qurux badan bay soo bandhigaan waxyaabo kale ayaa Telegram-ka lagu soo bandhigaa xataa hadii ay soo qarxinaysaan bal ma wax qurux badan soo qarxisaan muuqaalo wada nooc kala ah qaab daran si kala ah wax naga khaldan anagu waa fahmi la'anahay ma frustration baan ugu dhacay oo howlahaas ku saabsan inuu nagu dhacay iska cadahay teeda kale bariyahan hadana waxa ku soo kordhay in dadkii la nabo oo dad aan shaqo shaqo ku lahayn waxan korka laga saaro loo saariyo gabadhan muuqaal hore waxa jirtay TikTok-geeda ay soo dhigtay ee ku baahisay baraheeda bulshada oo ay kaga hadlayso si kaftan ah ama waxay ka eedanagu ma naqaanee loo tuubaraacay ayaa jira muuqaalkaas waxay leedahay annaga oo ah team walaalka u kala kici adiga oo asturan wax ceenka ah oo kaftan ahaan u badan annagoo team nooca oo magaca leh ayagoo dhowr gabdhood ah oo isku xiran muuqaalkan ay wareejinayaan Soomaalidii oo ay u saarinayaan waxay leeyihiin qofta waxaan sheegtay micnaha
waxaana ummadaahe sameey leeyihiin muuqaalkay u tuubaraaceenna waa kan. قراب وين سلامي فيديو كمان تحصل دوبي تيم لده أضاء الصورة ولا الكأوكل كعي ورجعنا عاد يسكت كده أضاء الصورة ولا الكأوكل كعي فهمتنا ملانا عيال فهم كرتين عيال كورتين هذا سستورة هذا سخوني أنا إيتها فهمتنا ملانا تقدم بكم تسأستورة يشوف قرآن لا حديث إلى هذا بلون تحب تقابلنا بلون قرآن because of حديث ده أبغانا يوتيوب كتير ولما شرف له ونكسن وقاية قيمة له وحشي جاي أنا أقوم gabadhan hadalkaas daraadiis ayaa maxal dahay loogu tuubaraacay oo maadaama waxaan ay sheegtay gabadha la soo qarxiyeen ee ishabahan de Soomaalidu way isku wada eg tahay qof Soomaaliya qof kale oo u eg maanta lama waanahay 5 qof ama 3 qof oo u eg waa la soo heli in loogu tuubaraaco oo dadkii la nabo oo waxyaabo qalad ah la faafiyo markii horeba annagoo qarxiska isnabida iyo waxa inaan waxaas uun ka shaqeyno shaqadeena ay tahay haddana in qofkii oo hadlahayo oo xataa live ku jiro oo leh war aniga ma ihi in korka laga saaro la nabo waa arin aad u weyn oo dadkaas xataa waxay u qalmaan in la dacweeyo oo wadamadan sharciga ka jira laga dacweeyo haday ay joogaan wadamadan oo maxaa la sheegay arintan si lagu soo afjari lahaana falankeeda la galo muuqaalkaas ay gabadhan maxaa la leedahay annaga oo ah adoo asturan walaalka u kala kici annagoo team hebel ah oo gabdhaha sida ah waxaan leenahay adoo asturan walaalka u kala kici macnaa saameyn may ku raadinaysay mis dhehaysin si kale may u hadlaysay qoftan wax ama si ka ahayeen oo qofta gabdhaha waxyaabo badan baa jira in isku buuqsantaa laga yaabaa in stress ama waxyaabahaas ama in caanimo ay ku raadinaysay oo ii sheegay ama maxaa la saameyn ama waxyaabahaas ay ku raadinaysay ama iska kaftamaysay wax baa la hubsadaa dadkan way isku ekaan karaan muuqaaladan shaxumada ah faafintooda joojiye Soomaaliya muuqaalka haduu ku soo gaaro fadlan si share YouTube-kana subscribe noo saar like na noo saar muuqaalka si uu dad badan u gaaro waan maasantiin waa doorashadaada aniga inaan naag difaacay inaan difaacin ana dooran kara laakiin inaan dulmiyo oo maxaa la dhahay xumaanta aan gabadh u bilaabo oo maxaa la dhahay dad u caay darteed wax fiican ma walaalka adigu kula dhashay naag haday noqdaan ugu adigu naag baata na waligiin ma aragteen nin kale ku dhigan haday personal isku dhacaan ha laakiin intu meel soo community soo gala maanta nin maxaa la dhahay ku dhigan oo haysta ma aragteen haduu qabsadana rag kale inta loo qoso gal xilaa hore astabada ninka xiniyaa qof laakiin waaba qoyin miiranba waaba xoolo caadiyaba mid kale sii wacay heblaayo gaali waxaan arag tii kale nasho abay aqal ku dara waa codsi gabdhaha idan caawinaynin hadiidan xushmad u muujinaynin hadaadan sabood gareynaynin qofka inaad caawiso kuma qasbanin okay laakiin waxaad ku qasban tahay afkaaga inay haysatid